الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. waxaan rabaa inaan halkaan aan hawada u soo mariyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacbiga reer Hiiraan oo aniga aan u ahay mid ka mid ah xildhibaanada ku matala baarlamaanka dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. muuqaalka aan rabo inaan hawada u soo mariyo dadka aniga aan matalo ka bedelan yahay muuqaalo fara badan oo hore aan isla wadaagnay kuwaas oo mar ahay tacsiin marna ahay inaan isku boorino la dagaalanka argagixisada. waa inaan isku hambaleynaa guusha bilowga oo aan gaarnay taasoo ka soo bilaabatay dagaal adag oo aan la galnay cadowga argagixisada ee shabaab. sidaan wada xasuusano oo aan rabnay inaan dib aan u fiirino taariikhdii dhaweydana soo martay. bilowga dagaalkan wuxuu ka soo bilowday xuduudda labada dal ee leeyihiin Soomaaliya iyo Itoobiya kaliya shanaad ee walaalaheena Soomaaliya ayuu ka soo bilowday. maantana wuxuu marahayaa bariga Hiiraan oo idil in uu dagaalkaas laga xoreeyay cadowga oo hadda uu dagaalka u soo gobol dhacsaday dhanka iyo koonfurta oo shabeellada dhexe iyo galguduud ayuu maanta dagaalka labadaas furmood ayuu ku mataqaana lagu kala joogaa. waxaan rabaa dadkayga inaan ugu hambaliyeeyo waan idinkaga mahad celinayaa waxaana tiin dad lagu faani karo laguna dhaaran karo maxaa yeelay waxaan xasuustaa bilowgii sidaan oo kale habeen aan farin u soo marsiinaya hawada oo ceelka Bukore ay gubeen dadkuna markaas dagaalka bilow u ahayd inaan shabaab u sheegay in dadkooyga aysan ahayn dadka madaxa hoorsada isna dhiibo furmaha dagaalka iyo goobaha dagaalkana ka cararo inaysan ahayn baan bilowgii dagaalkan aan hore u sheegay. tii iyada ahayd caawa ayaa jawaabteeda oo baraatika oo ficil ah ayay arkeen shabaab wayna qiran hadda ayuu dhimirku u soo laaftay ay ogaadeen inaad tihiin dad aan lagu degdegi karin. laakiin waxay natiijada ay ogaadeen xilli aysan tala faraha aysan ugu jirin. dadkaygu waa idinkaga hambaleynayaa guulaha taariikhiga aad soo hoyiseen iyo goobaha dagaalka aad ku fara adeegteen haddii qeybaha kala gedisan oo reerkaas oo aniga aan matalay xawaadla gabdhaha wiilasha aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo culimmaduba iyo magaalo iyo qurbo joogba uuna mideeyay dagaalkaas wuxuuna na tusay midnimada inaan ugu gudbi karna caqabado adag ay jooga. muddo ayaan filanaynay Soomaalina kala mid aan u ahayn in aan mar uun cadowga ummadda la dhaafiyo lana helo dawlad maaragtay arrintaas gacan naga siiso. maanta nasiib waxaan u helnay madaxweyne u heelan inuu garab nagu siiyo dagaalka iyo anakoo ah go'aanka qolada qaadatay oo xabadda ku bilowday. waxaan rabaa inaan hambaliyada aan ka reebin aan ku daro ciidanka qalabka sidee Soomaaliyeed qaybihiisa kala gedisan danab oo xaqiiqdii door aan la iloobi karin ka qaadatay dagaalkaas gaar ahaan saraakiisha hogaaminaysana taariikhda baa qorayso. sidoo kale waxa garab socday iyakana taariikhda qori doontaa saraakiisha ciidamada gorgor oo iyakana dhabar adeeg furmihii dagaalka xaaladihii muujiyeen. sidoo kale taliska qaybta 27 gaar ahaan guutada shanaad uu hogaamiyay saaxiibkay Kornel Bakay waxaan leeyahay hambaliyo guusha bilowga ayaan iskugu hambaleynaa caaw. waxaan rabaa inaan kale halkaan ku bogaadiyo dhammaan siyaasiyiintii qaybta ka ahayd xildhibaanada heer federaal xildhibaanada isteedka ee reerkaas ka soo jeedo siyaasiyiinta federaalka ee reerkaas ka soo jeedo siyaasiyiinta isteedka ee reerkaas ka soo jeedo dhammaanteen waxna mideeyay inaan dagaalkaas hal fikri hal ujeediyo hal dan aan ka yeelano oo ah inaan reerkeena aan xoreyno. waa ku mahadsantihiin. qof walba mas'uul ahna wuxuu mas'uul u yahay loona soo idmaday waxay in dadka loo soo idmay maslaxadooda uu ka shaqeeyo. xaqiiqda waxaan aaminsanahay mid walba anaka naga mid inuu ka soo baxay doorka uu lahay welina shaqo ay noo taalo. caawa kuma jeefan karna halka aan joogno ee waxa noo dhiman ayaa ka weyn wixii aan soo marnay dhulka aan qabsanay inaan ku sugnaano oo guusheena sugno waa shaqo noo taalo. dib u dayactirka deegaankaas iyo horumarinta deegaankaasna waa shaqo kale oo inoo taalo.
qurba joogta iyo gudu joogta waxaan leeyahay wadooyin lama haayo ceelal lama haayo matooro lama haayo beero lama haayo xoolo lama haayo dadku way xalifteen ayax tagi aan reeb ay Soomaalidu dhahdaa shabaab uu tagay laakiin wuxuu rabay dhibaato loo baahan in laga kabsado taas fariintaas oo tan u dirayo reerkayga aan aniga xildhibaan ku ahay mid kale aan rabaa inaan iraahdo siyaasiyiinta isbuuci dagaalkan uu socday bilihii dagaalkan uu soo socdayba miidyada iyo telefishinada waxa isku garbinayay siyaasiyiin dhaliilayo dagaalka socdo ka socda Hiiraan iyo Galgaduud waxay u galiyeen shaati qabiil waxayna miidiya la soo fadhiisanay dhahan qabiilada la hubeenaya qatar ayaa ka imaanaysa marraba marar kale gedisan inaa u jawaabay waxaan rabaa hal mar inaan u jawaabo dhamaantood intii hore u hadashay iyo inta hadda inay hadashay rabtaba hal mar rabaa inaan fariin jawaab aan u marsiyo walaalayaalow haddaad ogtihiin waa ogtihiin haddaadan ogeeyna haddaan idin sheegayaa reerka dagaalamayo hal qori oo dheeri ah dawladii siisay oo AK47 ugu yar oo loo geeyma jirto dawladda reerkaas kalimaana reeraha kale la dagaalamaya shabaab oo xoolooda inay iska dhiciyaan ka dhacsadaan go'aansadayna ma jirin dawladda wax ay u rartay oo qoryo ah iyo hub noociis kala gedisan ah oo ay dawladda u rartay ay ku hubaysan ma jirto hubna wax la yiraahdo hubeen hadaad maqashin wax la yiraahdo qofka in la siiyo wixii uu ku dagaalami lahaa qorigii qasnadiisa hubka noociis kala gedisan oo idil in la siiyo ayaa hubeen la yiraahdaa hubka aan ku dagaalamayna reerkeena oo xawaadlo uu ku dagaalamayo oo hubkii aan lahayn oo aan ka soo bixin guryaha wiilasha dagaalamay waa wiilasha deegaanka jooga shalayna ku noolaay maantana ku nool birina ku noolaan doono shalay hubkan waa haysanay ku dhibaateynay wiilashan way joogeen shalay iyo dhibaateeyeen argagaxa dadkaas miidiida ka hadlay laba qaybood oo marka qayb madaxtooyada inay guulaha dalkan gaarayo madaxtooyada u nasab sheeganayso madaxtooyada guulaan xiliga ay talada hayeen madaxweyne xasan sheekh ay ku soo aado sawirkaas ay diidan yihiin qayb waa noocaas oo halkaas wax ka arki hayaan oo waxay leeyihiin siifiga madaxweyne xasan sheekh ama u gashaa xiligii xasan sheekh uu joogaa shabaab deegaano fara badan laga xoreeyay qaybta noocaas u fikirayso waxaan la aragtidiina way kaaban tahay maskaxdiina dib u celiya kaligiin inaad meel fariisataan dhibaatooyinka shabaab dadkan kala kulmeen noocay ahaayeen ka fikira qolo kale waxa jirta reer ahaan xoogaa u arka inaan dhibaato ku nahay inaan shabaab iska qaadno war haddaan dhibaato nahay shalayna kala celin jiray waxaan leeyahay dadka aragtida qabiilka oo aaminsan reerkan haddii shabaab iska dhiciyaan inay mataqaanaa inay dhibaato ugu imaanayso war shalay sidaan diris wanaagii walaaltinimadii iyo dadka Soomaaliyeed ugu nooleen ayaa maanta rabnaa inaan kula noolaano inaan shabaab iska dhiciyana fasax ciidan ugu qaadanayna ma lahan maxaa yeelay shalay markay ii dhibaateynayeen oo dadkayga dhibaateynay cid ay fasax ka soo qaateen ma jirin marka kuwa iyaga ah oo xasaasiyada qabiilka qaban waxaan leeyahay shalay sidaan u noolaanayna cid aan dhibaateynayna ma lahan hubka aan ku dagaalamayno waa hubkii shalay aan haysanay wiilasha dagaalamayno waa wiilasha shalay cadow aan shabaab ahayn oo aan leenahay ma jirto cadow aan shabaab ahayn oo aan leenahay ma jirto taas aan leeyahay waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo beesha caalamka dawladda federaalka oo hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaan rabaa inaan fariin u soo jeediyo mudan cali guudlaabe fariintaas waxay tahay deegaanada la xoreeyay waxay u baahan yihiin gacan dawladeed inay tagto wasaarad walba shaqo ku leeyna inay howsheeda ka qabsato ayaan ugu baaqaynaa deegaanada cadowga laga kacashay wasaaradda tamartii biyaha waxaan u baahanahay ceelasha inay dayactirto wasaaradda caafimaadka waxa looga baahanyahay inay xarumihii caafimaadka dagaalada ku argagixis baabi'isay dib u habeeyaan wasaaradda waxbarashada sidaas oo kale hay'adaha dawliga aan ahayn oo heer caalami heer gudaba waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ugu gaaraan waxyaalaha aad wadaan oo ah assessment sameynayna waxbaan baarayna xoogan raadinayna war dadka inta assessment raadinaya ayay dhibaato badan ugu imaanaysa waxa aad ay u baahan yihiin taasna waxaan leeyahay wax walba dadkaas loogu talagalay gaarto madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay ku maasanta madaxweyne garab isaaga iyo hiilada dhabta oo aad u muujiso guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan dadkaas shabaabka la dagaalamayo